waxaan se taakiidinayaa oo aan ballankaan ku soo qaaday filla Soomaaliya inaan abal celino waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha saaxiibkay cali yuusuf cali hoosh oo dhinacayga taagan waxa soo gabagabooday doorashada madaxtooyada maamul goboleedka waqooyi bari oo heertii hore ee saaka magaalada Laascaanood ka bilaabatay Cabdiqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye iyo Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa loo doortay hoggaanka maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye ayaa noqday madaxweynaha halka Abwaan uu noqday madaxweyne ku xigeenka maamulkan doorasho hadan adag dhacay musharaxiintu meela adag yimaadeen balse ugu dambeynay guusha qaateen raggii loo saadaalinayay waa Abwaan iyo Firdhiye muddo aad u badan oo 32 sano ayaa dadka gobolada degan u halgamayeen xuquuqdooda siyaasadeed iyo inay badbaadiyaan midnimada qaranka Soomaaliyeed maanta waxay gaareen guul aad u weyn waxa la doortay madaxweynihii dawlad goboleedka waqooyi bari mudane Cabdiqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye oo ahaa hogaamiyihii 2 sano ku meel gaarka ahayd sidoo kale waxa la doortay Cabdiqaadir Yuusuf Jibriil oo ku magac dheer Abwaan oo isaguna halgamaa iyo geesi ka soo baxay gobolada Maakhir oo ka tirsan dawlad goboleedka waqooyi bari anigoo ah gudoomiyihii guddiga doorashada golaha baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa mas'uuliyiinta la doortay waa u mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada kuwii ii codeeyey iyo kuwii saaxiibaday u codeeyey intaba waxaan kaloo u mahadnaqayaa murashaxiintii saaxiibaday ee aanu tartannay oo runtii tartankoodu uu xallad iyo macno dheeraada u yeelay doorashada iyo dowladiskeenna waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalkiinnii waynu wada guulaysannay waxaa guulaystay shacabka waqooyi bari oo dhan waxaa guulaystay midnimadii Soomaaliya waxaa guulaystay in reer waqooyi bari ay ka baxaan dhulkooda murankii lagu muransanaa waxaan bogaadinayaa dhammaan shacabka waqooyi bari waxaan gaar u xusayaa ciidamada qaybaha kala duwan ee ciidamadeenna oo isu taagay sugitaanka amniga intii uu soconayay maamul dhiskuna dowr weyn ka qaatay in xasilooni iyo nabadgelyo ay inoo ku dhacdo waxaan bogaadinayaa saxaafadda oo ahayd tiir udub dhaxaada oo ka turjumayay xadaaradda iyo kalsoonida reer waqooyi bari ay isku qabaan waxaan leeyahay saxaafaddeenna waad mahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa hablaha reer waqooyi bari oo halgankeennii iyo dowladiskaba lafdhabar u ahaa waxaan u mahadnaqayaa jamaahiirta iyo dhallinyarada oo iyaguna dowr weyn ka qaatay kaalinka ay ku lahaayeen halgankeennii kacdoonkii difaaca haddeer lagu jiro iyo dowladiska